maxay isku qabteen Cabdi Askari Tube iyo Maxamed BK waa maxay heesta la isku haystaa xageysay iska soo galeen muxuu ka qabtay Sultan Seraar sidoo Sultan Seraar u soo galay arinta ka dhaxaysa Cabdi Askari Tube iyo Maxamed BK si xaqu ka soo galay abwaandaha Cabdigaas oo isna meesha ka hadlaya وارنتا ينكو فاقدي دونو فيديو جينن فضلا كانال كان سبسكرايب صار انتا انا داون فيديو كهر سبسكرايب نو صار كمبلال كان تابو سيدو كلا لايك صار مقال كسوسي شير كريسمو ضد بدن وو غادو حتى بو حنو غلي دونا arrinta ku saabsan daha Cabdigaas Sultan Seraar Maxamed BK iyo YouTuber-ka weyn ee 5,000,000 ka kor u dhaafay isla markaana aadka loo jecel yahay isla markaana heesaha update-ka soo dhiga waa Cabdi Askari Tube ninkaas oo xayisiin dul saaray heesihiisa isla markaana ka duwan YouTuber-rada sida waqal oo kale isla markaana marka uu soo dhigo fiidiyogiisa xaq hore kaga soo dara xayisiin lagu daawado fiidiyowadiisa inta badan mana uu sameeyo muuqaal socda inta badan ilaa loo soo sameeysto mooyaane heesaha lyricska-na wuxuu sameeyaa muuqaal isaga oo gaara oo lyricska hadaba ninka YouTuber-ka Cabdi Askari Tube ayaa soo dhigay heesuu lahaa Maxamed BK heestaas oo sameeyay daha Cabdigaas waa halka uu daha Cabdigaas ka soo galay muranka u dhaxeeya Cabdi Askari Tube iyo waliba Maxamed BK Maxamed BK ayaa heestan afkiisa ku qaaday isla markaan laxanka saaray hadaba heestan Maxamed BK qaaday ayaa uu qaatay nin kale oo xamar joogay isla markaana fanaan sheeganay kaas oo dib u soo qaaday heesta isla markaana codeeyay fanaanka Maxamed BK uu nooliyay ee maaha Allah uu naxariisto Maxamed BK ayaa ka xanaaqay arrintaas isla markaana la xiriiray Cabdi Askari Tube markuu heestaasi arkay kuna yidhi heesta iska saar aniga ayaa la xuquuqdan aniga baa iska leh Cabdi Askari Tube waxa uu weydiiyay maxaad fiidiyoo ugu sameyn weyday waxa uu ugu jawaabay aniga heesahaygu ayuu dhiiday ku qarxaan isla markaana fiidiyoo uma sameeyay heestan ka saar kanaalkaaga Cabdi Askari Tube waxa uu yidhi waan tagayaa oo computerka ayaan du tagayaa wixii qaldanna waan saxayaa halka marka ay sheekadu maraysay Sultan Seraar ayaa ku soo baray isla markaana sheegay inuu dhexdhexaadinayo labadan qof